wasaaradda deegaanka oo garwaaqsan saamaynta horumarku ku leeyahay badqabka deegaanka berri iyo badba si gaarana u ogsoon kabaca somalilan ka samaysay dhinaca dekedaha waxay sanadkii ay hirgelisay waaxda ilaalinta deegaanka badda si looga warhayo loona ilaaliyo khayraadka baddeena ee eebba nagu manaystay iyadoo somalilan oo leh bad dherarkeedu dhan yahay 856 kilomitir uu shacaabiga ku jira ka yaryahay 5 kaasoo haddii dhibaata soo gaadho saamayn daran ku reebi kara noolaha badda maadaama goobahaasi ay yihiin meelaha ay noolayaasha baddu ugxanta dhigtaan waxa laga maarmi waayay in laga warhayo oo la ilaaliyo deegaankii badda maadaama markii hore wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu ay xoog ku lahayd qaybta deegaanka berriga oo aad uga shaqayn jirnay marka sanadka laga soo bilaabo waaxda waxa uu qabsoomay markii waaxda la aasaasay waxaanu diyaarinay plaankii iyo istiraatiijiyadii ay ku shaqayn lahayd waaxda guud ahaan deegaanka badda ee Somaliland qodobkaas wuxuu kii ugu horeeyay aan bilowno maadaama aan Somaliland sideedaba ama Soomaalidu aanay aqoon fara badan u lahayn arrimaha badda oo maamaha Soomaaliya ay oran jirtay maxaa badda ay geliyay inta badan de Soomaalidu waxay sas ka qabaanba badda iyo wixii badda la xiriira maadaama marka aqoon hore aan lahayn waxaan diyaarinay markii ugu horeysay isku daynay inaanu balahelo xog xagee wax yaalaan halkii aynu maraynaa marka waxaanu bilownay inaanu sameeyno xog ururin aan ka sameeynay dhammaan gobolada dalka sida Awdal, Salal iyo Saaxil xog ururinta waxaan ku ogaanay base noo ahayd inaanu bal ogaano halkii wax maraya maxaa Soomaaliland ka war caqabadaha ka jira deegaanada xeebaha marka 2021 waxaanu qabanay xog ururin laga sameeyay xeebaha dalka kadib waxaanu halka nooga soo baxday waxyaalaha loo baahan yahay oo marka waxaanu diyaarinay balaankaas ay waaxda ku shaqayn lahayd ee arrimaha deegaanka badda waxa kaloo ku xigay oo isla sanadka ku xigay waaxda tababar ama aqoon isweydaarsi loogu diray dalka Madagascar oo caan ku ah goobaha la ilaaliyay ee deegaanka badda ama sida takhida oo mangrove la yiraahdo ayay aad ugu horeeyaan kadibna waxaan u tagnay inaan aqoon ka soo korsano maadaama ay Soomaaliland aan aqoon hore u lahayn qaybaha deegaanka badda ujeedada guud ee waaxdu ay wasaaraddu u qaabilsantay waxa weeyaan inay la shaqeyso daneeyayaasha arrimaha deegaanka badda oo samaynta siyaasadaha iyo istiraatiijiyadda deegaanka badda Somaliland inay xog ururin ka diyaariso arrimaha deegaanka badda sidoo kale waxay waaxdu ka shaqeysaa wacyigelinta bulshada oo inay ku wacyigeliso inay ilaalino khayraadkeena badda ilaahay nagu manaystay marka waxa kale oo ay waaxdu ka shaqeysaa cilmi baarista iyo la shaqeynta hay'adaha caalamiga ah inay dabaqdo heshiisyada caalamiga ah ee dunida gashay taana way waaxdu way wasaaradda u qaabilsantahay waxaan qabanaa hawlahaas sidoo kale waxyaalaha kale noo qabsoomay isla sanadkan gudihiisa waxaanu diyaarinay waaxdu waxay diyaarisay siyaasadda deegaanka badda iyo xeebaha Somaliland siyaasaddaas waxaan soo bilownay sanadkii 2023 oo aan xog ururin ka soo sameynay gobolada Saylac, Salal iyo Awdal xog ururinta kadib waxaanu diyaarinay qaabkii loo dhig lahaa siyaasaddu waa imika waxa dhaba qaybta hore dhamaatay sanadkan gudihiisa insha Allah waxaanu bilaabi doonaa qoridii koowaad iyo draafkayntii iyo inaanu dhammaan waxay u baahnay siyaasaddu ku gurno kadibna waxay noqon doontaa sanadkan gudihiisa siyaasad dhameystiran oo ay Soomaaliland leedahay qaybta deegaanka badda waaxdu waxay ka shaqeysaa ka hortagga arrimaha dikhawga badda sida in qashinka lagu shubo badda laga ilaaliyo ka hortagga qashimada kamaraakiibta kalka yimaada dhulka land of ama resource ka yimaada magaalooyinka ee galaya badda waxa soo dhan waaxdu sida bacaha iyo qashinka iyo plastika in badda laga ilaaliyo oo hawlaha waaxdu ka shaqeynayso ay u qaabilsan tahay waaxda wasaaradda ka ahaan sanadka gudihiisa waxaan ka qayb galnay shir ka dhacayay dalka Taiwan kaasoo ku saabsanaa workshop wuxuuna ku saabsanaa ilaalinta khayraadka badda iyo ka faa'iideysiga kaarboonka ama waxyaalaha loo yaqaano kaarboonka buluuga ah sida dhirtan la yiraahdo mangrove-ka takhida
shucaabiga cawska badda iyo jaamta meelahaas oo ah meelaha ugu faraha badan ee faa'iidooyinka ugu badan badda laga helo isla markaana dadku uga faa'iideysan karaan looga faa'iideysto in laga sameeyo lacag waxa kale wasaaraddu muhiimad gaar ah siisaa ilaalinta deegaanka badda taasoo aan imika wadno waxa la yiraahdo marine environmental policy wasaaradda waxa ku soo kordhay khayraadkii badda oo waaxa ayaa ku soo kordhay iyo fayadhowrka oo la shaqeyn doona dawladaha hoose labadaasba way ku soo kordheen labadaasba waa laba waaxood oo ku soo kordhay runtii labada waaxood bay imika dardar gelinay si wanaagsan bay u shaqeeyaan labaduba waxaan ka filaynaa insha Allah in iyaguna noqdaan very productive ama inay wax soo saaraan